maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xukunno kala gedisan waxa ay ku riday ragga ay xeer ilaalinta ku soo eedeysay in ay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab. warkan oo dhameystiran waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray Maxamed Cabdi Cismaan Faradheere. maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukunno xabsiga ku riday rag iyo dumar lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin al-shabaab kadib markii ay dhageysatay waxyaabihii lagu soo eedeeyay 40 qof ee ay maanta xukunnada xabsiga ku riday maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida waxaana xukunka ku dhawaaqay garsooraha maxkamadda gaashaanle dhexe Xasan Cabdiraxmaan Aadan markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xeeraalyaha ciidamada qalabka sida oo ku xusnayd qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalada eedeysanayaasha kala ah Cabdishakuur Guure Siyaad Calasow iyo Maryan Maxamed Siyaad